وهلنا حقيقة وهلنا إن شاء الله xaflad ay ku shaacinaysa musharaxnimadeeda Nuuralcayn Khaliif Sheekh Abu oo u taagan qabashada xilka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta ka hirgashay magaalada Barawe ee caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. xafladda shaacinta musharaxnimada Nuuralcayn ayaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka degmada Barawe iyo culimada ururka haweenka degmada Barawe, ururka dhalinyarada magaalada Barawe ee caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. ugu horeyn xafladda shaacinta musharaxnimada Nuuralcayn Khaliif Sheekh Abu waxaa ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada magaalada Barawe Zakariya Maxamuud Maxamed Zakari Baba. ay sameysay oo ay hooseed u ahayd insha Allah Nuuralcayn halkan aniga waxaan ugu maanay adigna ugu taageerno inaan codkaaga aan dhageysano insha Allah ballanqaadyadii inta aad qaadi doontaan insha Allah in aad bannaanka noo soo dhigtid insha Allah beritooda waa la isweydiin doonaa wixii adiga afkaaga maanta aad ka sheegtid oo adiga aad qaban lahayd insha Allah meediyadana waa ku jiri doonaa insha Allah berit waa soo bandhigi doonaa markhaatiyan ka noqon doonaa hadduu alla idmo markoowaad mar labaad mar saddexaad ba ayni waxaan ku dhahaynaa insha Allah soo dhawow waan ognahay waxqabadkaaga waan aragnay waxaad qabatay waqti xaadirkan guryihii arinka mas-uulka aheedama adig hooseed u ahayd dad aad ku hoydo oo ku seexda oo biyaashii aad gelisayna waa la socnaa hadda waqti xaadirkan dadaa cabayo insha Allah hawshaada yay noqonin mid hadda oo yay noqonin waxaan ku dhahay insha Allah hawshaada ha noqoto berito haddii xilkii adiga aad la wareegtid in oo dhalinyaradaada iyo dadkaaga aad hor imaan kartid oo insha Allah la xisaabtami kartid aad dhihi kartid waxaa kaloo ka hadlay gudoomiyaha nabadoonada degmada Barawe Aways Sheekh Muumin. musharaxa xildhibaannimo Marwo Nuuralcayn iyo inta ka soo qayb gashay kulli guud ahaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waxaa halkaan isku weliminahay gabadhaan soo dhaweyno waa gabar deegaan ah waa gabar oo ayadoo dibadda joogta u soo hilowday dadkeeda way jeclaatay inay wax qabato waayo xildhibaannimada oo la sheegaya dadku waxay umaleynayaan arrin oo cayaar ah ama arrin raaxa ah ma aha waa qof oo naftiisii u hibeeyey dadkiisa inkastoo muddooyinkii oo hore muddooyinkii inaan soo dhaafnay waad ogtihiin khaas ahaan degmadan Barawe xildhibaanadu ku abtirsadaan wax unbaa xoogaa laga sheegi jiray laakiin hadda waxaa idin sheegaa cid kasta oo musharax ah oo ay doonayso inay halkaa timaado horta inaa gacan furan lagu soo dhayo lagu qasbonaya ummad waxaa jirto oo qaarkoodii fahamsan arrin qalad ah qofka musharaxa markuu halkaa yimaado dadweynaha markii ay u yimaadaan micnaheedu waxay tahay horta markuu waraysa soo dhawow marka iyaga waa ku taageersanaya dambiga meesha ku jira maxay tahay dadaa jiro oo wax kale u fakiranayo oo siyaasadeenaya ma taaro Nuuralcayn haddii ilaahay u qori inay noqoto xildhibaan cid ka reebi karta maal isla markaana la ogaado boqol qof kala imaan karto oo musharax ah oo isla kursigaas doonayso ayagana waa soo dhaweynaya yani ha soo sharaxaano ha tartamaano ilaahay qofkiisa yaa qaadanaya dadka inay wax ka uqatirtaa ma aha cayn sideedu waxaa loo yaqaan Nuuralcayn inay waxyaabo fara badan inay meeshaa ka qabateen waa la ogyahay ururka haweenka oo ayada iyo walaasheena Iisha Cumar Saciid iyo gruub kale fara badan oo wada jira inta wax ka qabteen waa ognaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa hadda maadaama ilaahay fursada u siiyo ilaahay hadda fursad waa soo siiyo ilaahay ilaa inta timide oo iyadoo nabad qabtay ku timid halkaa gurigeedana joogtaa ciddeeda dhex joogtaa haddana waxaan rajaynaynaa haddii ay hesho oo ilaahay u garto inay iyada oo calaf ku yahayba dee waxaan rajaynayaa inay dadkeedii iyada oo xildhibaan ahayn waxa uu qabatee hata si fiican waxa uu qaban karto adag waa beri laba daqiiq waa amanaya dhamaatay waxaan rajaynayaa in dadka si oo ay u qaateen in ay arrinta ahayd musharaxnimada oo degmada ciddii maasoo leeyahay ilaahay ku soo qori waa soo sharxi karaa ciddii ilaahay siin waa siin doona intaas waa ka badan. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين إلهي سبحانه وتعالى يا مهدي ذلك أسمناتي الله سبحانه وتعالى سبحانه كان مكان كان قروح البدن ودلك وجهه قروح البدن ماشي سكوي ماضي دمانتين قفل بمكانك يبوسكو كفر يا ماشي أنكو سلامة يا عليهم ولا هذا القادرين أهلا ومهسنتين كل سود الوالد لله هاي كوات كلوات استحاد سود الوالد لله هاي نودونا رمان horta meeshaan waxaa u joogno waxay tahay inaan maaragtay ku dhiirigelin waayaane ma ahan maaragtay waxyaabo kale oo aan intu imaanay inaan walaasheena ku dhiirigelino aan dhahno hore u soco waxaa waaye hadafkaagana waad gaari doontaa marka anaga haddaan nahay reer baraawe dadka maaragtay reer baraawe maaragtay dad baa si kale ayay maaragtay ku kala fasiranayaan qof laakiin aqoonyahanka markuu yahay amba wax garanayo deegaankiisi iyo wuxuu yahay kulley wuu dareemi karaa marka walaasheena in muddo maaragtay waxay maaragtay wax usoo baranaysay wixii maaragtay qof walba waxaa la yidhi nimaan dhul marin dhaayo ma laha qof hadduu deegaankiisa dhex fadhiyo oosan maaragtay haddaa aqoonta doonta hadduu lahaado laakiin maaragtay wax maaragtay saas uu waxanqaltaagan wax saas hadaf saas le inuusan lehenaa laga yaabaa laakiin markii qof hoogaa yar dalka ka baxo wuu dareemi karaa dalka iyo hamuunkiisa iyo wuxuu yani faa'iidadu leedahay yani deegaanka marka koonfur galbeed waa meesha keliya maaragtay hadda maanta dhaqaalaha iyo waxyaabo badan oo maaragtay faadimo gaawo cismaan oo ah gudoomiyaha ururka haweenka degmada baraawe ayaa ammaantay musharaxiinta fariintaas waxaa iska lahaa baraawe wamanis waxaa iska lahaa hururayn maskaxda iyadaa lahayd inaad la abaabulo waxaan ka sameeyo baraawe inay u istaagaan maantida waxay u qabtaan inay dadka ayagoo ku yeelaan ee aqoonin ay u istaagaan siday u caawi lahaayeen xilli kasta ay u taagan yihiin jeefkooda ay ka bixiyaan hay-ad ma taageerayso niman wax ma siiyaan waxay u istaageen inaa gabdhaha iyaga ay reer baraawe kasoo jireen ay u istaagaan maantooda ina hormariyaan waa sugidaas ka lahayd ee ayaas ka hado waa ku maasantahay ayna waxaan leeyahay marna allaa nagu sugaayay maantana anaga nala sugaayay insha allahu tacaala waxaa u taagan inaan garab ku siino waxaan leenahay wax qabadka inaan ku kala saarno dadka kuraas u taagan insha allah intaa hadda joogtay inka badan waa sugaynaa inay yimaadaan ee usoo tartamaan kuraasta anaga dadka la hori doono insha allah waxaa kaloo ka hadlay nabadoon baraawi oo ka mid ah nabadoonada degmada baraawe lakini maidiwani vitu wote wakisilombele wana mashangamazi wana vitu wakao kwa tufasaha kila mwenda Amerika nenda London nenda Canada kistareha na wanawe hajili kakuwai ni masuli ya shafi ya itezo nisipende fanya kodi mingi diwan Nur al-Ain tinahambira igema na tunakutarajia kama jitu jako iya no kumero ya diwani mojitu kufanya sahari sisi tunafunga spending tunasula kwa wanafunzi pia ya wakishikiro waspisiro chilene na ave tunasula kuona dalaliyo na juhudhiyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. nabadoon Samburu ayaa sheegay in garab istaagi doonaan mamacayni kusoo dhawaada xafladan oo macnaheedu yahay مشرح حلوان دكتورسو نور عيني علي الشيخ أبو وما تسوني من إن مشرح نمضي إذا قرب استاجلو وقرب تاجلنا هاي قبلنا ديجان كان واحد لقى أساس هيد اللي ياهو براو ووبنس أو كانت تقارن تا نفس التنتير waxaa la dhisay boqolaal guri wax badan ay sameeyeen wax badan la soo koobi karin dadka taagta daran hadday ahaan lahaayeen cuntusiin waxyaabo badan ayada cayni ah iyo Cumar Saciid Xaliimo Cumar Xasan iyo gabdho badan waxay u istaageen in deegaanku dadka tabaalaysan aan qabiil loo kala soocin inay garab istaagaan oo ay taakulayaan annagu maanta waan garab istaagaynaa gabadha walaasheenna ah inay ilaahay u idmo bari inay xilbaan noqoto annagu haddaa odayaasha nahay sida ururka habeenka urur dhalinyarada cid aan micnaha qof kasta yimaado hadduu micnaha waa hor wax soo haleeyo xilbaan ahaa waxba qaban iyo hadduu hadda cusub yahayba waxaa naga go-an in aan garab istaagno aan xafladiis ka soo qayb galno
balse berri inaan xulano yaa wax gal ah inaan xulano haddii ilaahayno balse xafladda imaashada uu kala hadhay codsanayna haddii ilaahay u sahlo in ay sida aan u garab istaagnay hadhow noo garab istaag deegaanka waxay u qabato asalaamu calaykum waraxmatullahi kukan maanta xalfadan waa ku faraxsannahay haddii odayaasha deegaanka aan nahay deegaanka wax ka magan male ururka haweenka ururka dhalinyarada odayaasha dhan wax magan male maanta qolkii buur waaye waa ku faraxsannahay tanka labaad waxaan rabnaa musharaxa nuur ayn waa soo dhaweyneynaa waa mudan tahay gabadh u qalanta waaye wax dhaama male halgankeeda waa soo arag intiga hore baydhabo isla joogno gabadh aad u firfircoon oo waan soo dhaweyneynaa odayaasha deegaanka haddii nahay waa soo dhaweyneynaa haddii ilaahay hooseena waa la shaqayneynaa irkooyinka oo beeshka oo hasi lasoo hulaayo gabadha waa mudan tahay in la garab la siiyo la garab istaago deegaanka waa horumarin kartaa waa u qalintaa waxaan rabnaa in la soo dhaweey in la doorto waan rabnaa waa la shaqaynaynaa deegaankan inaa horumarin kartaa hadda ugu dambeyn waxaa soo xiray munaasabada maamo cayni salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marti sharafta oo halkaan joogto igu soo dhaweysay magaalada Baraawe waxaan leeyahay aad baan idaaga mahad celinayaa soo dhaweyntiina sharaftii qiimaha badan oo aad ii garab istaagteen degmada Baraawe iyo reer Baraawe aad baa u mahadsantihiin sidaa wada ogtihiin aniga waxaan ahay qof musharaxa magacayga haddaan ii sheego waa wada ogtiin Nuuraceen Khaliif Sheekh Abuu Khaliif Sheekh Abuu Professor Khaliif Sheekh Abuu Allah u naxariisto ayaa i dhalay waa nin hadda ka hor karti leh una istaagay reer Baraawe oo dhan haddaan halkaan kusoo aadanay waxaan ahay musharax u taagan kootada 251 waxaan intaas kadib musharaxnimadeyda markaan ka gudbo waxaan rabaa si qiiro leh inaan u hadlo degmada Baraawe anigu waxaan u qabaa xiiso anoo isoo sharxin oona aanan maaragtay xildhibaannimo soo noqon ayaan aniga iyo gabdhaha reer Baraawe oo dhan u wada istaagnay inaan wax u qabano masaakiinta meesha degan sida lagugu sheegay ururka Baraawe Women's haddaan ingiriis lagugu sheegana Baraawe Women's Empowerment and Development naagtii asaastay oo u istaagtay ayaan ahay waxaana ila garab gashay xeer allaha siiyo saaxiibaday marka walaashay Iisha Cumar haddaan waxay magaalada taabtay Iisha Cumar waa gabar u taagan masaakiinta degmada hadda ka horna ee ka samaysay iskuul Muqdisho Soomaaliya oo loogu magac daray Iisha Cumar intaas waxaan ahay aniga Iisha dad walaalo ah oo lagu taagan degmada Baraawe xilkaan ilaah baa hayo hadduu ilaahay subxaanahu watacaala igu guuleysiyo alxamdulilah hadduu ilaahay igu guuleysina waa rabbilcaalamiin laakiin saan degmada ugu istaagay oo aan waqti usoo jiidin kama bixinayo waa badan ilaahay waxaan waa balaqaadkaygii haddaan ilaahay insha allah ku guuleysto xilka ilaa aan halkaan ka sheego oo ah ugu horeeyo habeenka isbitaalka waxbarashada iyo masaakiinta ogoonta in loo sameeyo meel lagu xanaaneeyo oo aabala-aanta ku dhacday saddexdaas aan balaqaado waa iga qori kartin insha allah biidnillahi kariim haddii aan maaragtay xilkaas ilaahay ugu wareejiyo haddaan aan ku guuleysano xataa awoodeyda intii aan saari karo waan saara insha allah walaalkay sheegay airboortka waan tagay waana soo arkay already waxaan ka bilaabay wax la yidhaahdo iskaa wax u qabso inaan iskeeda wax ku qabsano waa reer Baraawe inaan u istaagnaa degmadeena maaha inaan qof sugno oo albaabkaas noogu soo galo haddaanan anaga jeebkeena waxa ku jira ka soo saarin anaga haddaan hoosha bilaabin qof loo bilaabayo male waa inaan anaga hadda iska bilaabnaa inta degan degmada dhammaan marka waxaan leeyahay karti ha isku yeelo degmo waxaa sameyso
habeenka iyo dadka degan ayaa bilicda muujiyo bilicdeeda muujina degmada Baraawe dad badan oo soo qaatay ilaa ku dhaantay dad badan oo degmada Baraawe dhaantay markii aan laga dhaxalin degmadeena dhaxal oo kalena jidadkeeda iyo wasaqada ka nadiifsan insha Allah bilaal karim markaas waa heleynaa xaqeeda waa heleynaa insha Allah walaalayaal aad baa u mahadsantiin kuma dheeraanayo wadada waxaan insha Allah niga codsanayaa codkiina inaad maaragtay ugu deeqdin lacag isiini ma dhahayo laakiin cod baan niga rabaa oo maaragtay kalilaad ku jirto iyo kalsoonimo iyo qalbi furan inaad igu soo dhagaysiin oo aad maaragtay aad igu siisiin xataa aniga ma aha qofka iska haysiin qofka wuxuu ugu qaban karaa degmada inaad si fiican ugu soo dhagaysiin codkiina lagu deeqdin insha Allah mahadsantihiin boqolkiiba boqol aad baan igaga awaal celinayaa soo dhaweynta sharaftii qiimaha leh aad soo garab istaagteen waxaan u maleynaa weli ma dhicin musharax oo saaba kale loogu soo gurmado musiibka ciidani Abdulqaadir Maxamed Faqi, Som TV Soomaaliya, Baraawe, gobolka Shabeellaha Hoose.